haddii aan u gudubno toddobaadkan iyadana waxaan u baahannahay maadaama tababarayaasha aan nahay inaan go'aan ka gaarno kabtanka. Ciyaaryahanadee kabtan laga dhigan karaa is leedahay oo lagu aamini karaa dhibco. Waxaan xasuusanaa in Bruno Fernandes uu rikoodh FPL-ka kabtannimadii ugu badnaa loo dhiibtay toddobaadkii hore, laakiin waxba uusan keenin oo 2 dhibcood keliya uu keenay. Bal arrintaasna wax ka dhibal. Dahra isbuucan kabtanimada waxa uun meesha ugu dhow ee loo aadi karo dhibcana laga rajayn karo waa uun ciyaartoyda Man City. Sababtoo ah Man City maalmahan ama waqtiyadan dambe ciyaarahooda aad bay u fiicnaayeen, aadna way isku bedeleen. Marka meesha u horeyso ani ii muuqata oo kabtan wanaagsan laga heli karo waa ciyaartoyda Man City. Anaan kusii dheeraanayn isbuuci horena waan ka hadalnay Man City dhanka kabtanimada. Daafacooda xitaa waxaan aaminsanahay saa maalintii hore aan sheegay, haddana dee ayba dhacdaba in daafacooda qofkii dee markaas khatarta qaadan kara. Sabab daafac haddii hal mar laga dhaliyo waxaa waayeysaa dhibcihii clean sheet-ku 4 go'aysaa. Marka laakiin dee Man City difaac ahaan aad bay u adkaatay, waa wax la isku dayi karo. Marka difaacyadooda ha noqdo Cancelo oo dee asagaba weerarkiisa aad u yahay, Diaz ha noqdo, John Stones, kulli waa loo dhiiban karaa kabtanimada. Dhexda haddii la imaado Gundogan oo isna waqti aad u fiican ku jira waa lagu aamini karaa kabtanimada. Sterling asagana waa lagu aamini karaa. Marka shakhsiyaadka aan soo sheegay Man City ugu cadcad iyo dee waxaa kaloon ku dari karaa qof allaale dee qofkii Man City ku jira oo aan ka ahayn number 6-yada difaacada IMF-ka. Aad iyo aad. Iyaga weerarkooda uu iska yaryahay. Dadka kala dhan laakiin waa loo dhiiban karaa baan aaminsanahay kabtanimada. Haddii aan ka dhex galo waxaa xusid mudan iyadana inay 3 nin oo kabtanimada aadka loogu dhiibtay ay ka maqan yihiin meesha. Waa De Bruyne, Vardy iyo ninka toddobaadkii xalay dhaawaca galay Kane. Dadka qaarna weli kuma aaminin kabtanimada Salah. Marka kuwee is leedahay hadda waa u mudan yihiin in lagu aamino? Mar labaad Man City ani aad u adkaysanayaa oonan rajaynayaa inay dhibco badan ka keeni doonaan Sheffield United. Sheffield United si kasta u dagaalanto, Man City-na waxay u dagaalami doontaa inay booska koowaad ay hanato waqtiyadii ugu habboonaana hadda ay tahay. Marka ciyaartoyda aan soo sheegay Man City weli dee De Bruyne oo joogo oo kabtanimada loo dhiibanayo waa markasta waxaa ka dhibco badnaa maalin u dambeeyey ninka la dhaho Gundogan. Double game oo kale iyo kulamo kale oo iyagana jiray. Marka haddii kuwaas laga soo tago oo Man City aan ka soo baxo, Dahirow Tottenham haddii uu Kane ka maqan yahay, Son weeye ninkii la dhihi karo weerarka isagaa hogaaminaya. Marka Son wuu tabi karaa Kane oo dee caawimaad badan uu siin jiray Kane, inuu tago waa suurtagal oo saa darteed oo qaab ciyaareedkiisa hoos ugu dhaco. Waxaa kaloo suurtagal ah dee inuu weerarkii asaga uu hogaamiyo weerarka Tottenham oo dee uu noqdo qofka goolashan dhaliya, caawimaadkan caawinta fara badanna bixiya, inuu noqdana waa suurtagal. Taasayna u badan tahay sababtoo ah xilli ciyaareedka u dambeeyay oo kale markii dhowr jeer jirtay oo ninka la Kane dhaawac u galay, ninka tiimka hogaaminaya oo goolasha dhalinayay wuxuu ahaa Son. Waxaa laakiin xusud mudan xilli ciyaareedkan hadda socda inay aad iskugu tiirsanaayeen. Waxaa arkaysaa Kane oo gool dhaliyay, Son oo caawiyay, Son oo dhaliyay, Kane oo caawiyay. Marka waxaa suurtagal ah inuu tago waa suurtagal. Haddana waxaa meesha kusii jira in uu noqdo ninka booskiisii gala oo wax badan weerarka ka hogaamiya. Marka asagana waxay la ciyaarayaan Brighton la ciyaarayaan, kabtanimada loo dhiiban karaa. Arrintan waxaan ku caddayn karaa weerarada waaweyn adduunka markaa fiiriso xataa Premier League dhexdiisa Salah iyo Mane markuu garoonka maqan yahay Salah faa'iiday u tahay oo marka stats la fiiriyo Salah wuxuu ka dhibca badan yahay ama gool dhaliska ama caawinta marka noqoto markuu Mane maqan yahay. Markuu Mane isla ciyaarayaan markaasuu ka badan yahay sababtoo dee asagii waa u weynaanaya qofka weerarka u weyn asagaa noqonaya, fursado badan oo Mane uu dhalin lahaa wuu heli. Marka taas inuu faa'iido u noqoto waa suurtagal ninka la dhaho Son Heung-min.
aad iyo aad u mahadsan tahay dhinacyo badanaa taabatay saaxiib Muscab aad u mahadsan tahay mar kale waan kaaga mahad celinaynaa saaxiibada ku xiran FBL Somali waxaan idin xasuusinaynaa in barta Facebooka Instagramka iyo Twitterkaba aan ku leenahay akoonna aan ku leenahay halkaasna nagala socda waxaan soo gudbinaa ciyaaraha inta ay socdaan xogaha iyo update-ka la xiriira oo dhan ayaan soo gudbinaa 24 saac ayaan soo gudbinaa waxaan sidoo kale soo gudbinaa ciyaaryahanada qiimahooda kuwa hoos u dhaceen kuwa kor u kaceen inta waa soo gudbinaa sidoo kale YouTube-ka haddii aan subscribe saarin haddii aad ka heshay muuqaaladeena subscribe saar sidoo kalena saaxiibada la wadaag waxaan intaa kusoo gabageynaynaa barnaamijkeeni aad iyo aad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu